السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز مقال كحية channel كعلم سلي. waxaan maanta qaadanaynaa example keeni koowaad ee form 4ka. waxaan hore usoo sheegnay oo aad soo fahamtay sida rajaynayo muuqaalka ka horeeyay. haddii aadan hore usoo daawanina hadda ayaa link ku dhigay. waa muhiim inaad wax ka soo daawato oo wax ka soo fahamto si xeerarka iyo waxyaabaha aan hadda ku shaqeynayno ay wax kaga bilowdaan. waxaan hore usoo sheegnay sin waxa la yiraahdo cos waxa la yiraahdo iyo tan waxa la yiraahdo iyo xeerarka lagu helay iyo kuwa qaas ah oo special angles la qaab loo xifdiyo ayaan wax ka soo sheegnay. example keeni hadda toos u galeynaa. waxaan lagu diray example 1 find the exact value. waxaan u dhahay soo ogow qiimaha saxda ah of this kuwan soo socdo. marka hore waxaa lagu siiyay waad haysataa cos 15. waxaa sidoo kale lagu siiyay lagu haysataa b waxa lagu siiyay a waxa kaas b waxa lagu siiyay cos 87 oo ku dhacsan cos 93 laga jaray sin 87 oo ku dhacsan sin 93. ugu dambeyn c waxa lagu diray cos 5 by oo loo qaybiyay 12. saddexdaas waxa laga rabaa inaad xaliso. waxaan ka bilaabaynaa a oo ah cos 15. inta aadan tiradan xalin ka hor waxaan raadin doonaa number ii suurta gelinaya 15 aan u eegaya special angles. special angles haddii aad xasuusato wuxuu ka bilaabanaya 0 waxa ku xigtay 30 waxa ku xigtay 45 waxa ku xigtay 60 waxa ku xigtay 90 saas oo waa 0 30 45 60 ilaa 90 ee ku koobnaa shantaas tiro aha. waxaan fiirinayaa marka laba tiro oo suurtagal ka dhigayso in aan 15 ka helo. 45 iyo 30 haddii aan kala jaro dabcan waxaan ku heli doonaa tiradan u baahanahay. haddii aan 45 30 ka gooyo waxay ii noqon doontaa 15. marka laba tiradan waa bedelayaa. mar walba aad rabto inaad tiro xaliso waa inaad ka dhigtaa special angles waa inaad ka dhigtaa sum and difference formula inaad raacdaa muhiim ah. adoo kaas raacin ma dhaqaajin karaysid xisaabtan. marka sum haddii ima suurtagal difference ay suurtagelayso tiradan ko waxaan ku bedelayaa aan dhahayaa cos qoro. waxaad raacinaysaa cos waxaad tiraahdaa 15 booska ahayd waxaad ku bedelaysaa markaas 45 laga jaray 30 oo macnaheedu haddii la kala gooyo 45 iyo 30 haddii la kala gooyo waxa soo laaban doono 15. laakiin danta aan kala waxay tahay laba tiro ama la isku daraayo ama la kala jaraayo inaan helo ana u fiirinayo special angles aan xiisadii hore ku soo qaadanay. marka halkaas maraayo waa dareemaysaa numberkan wuxuu ku noqon doonaa a numberkan wuxuu ku noqon doonaa b. inta marka joogto waxaad toos u dabaqaysaa formulaha aad taqaanay. formula guud ahaan wuxuu sheegayay haddii aad xasuusato formula wuxuu ahaa haddii lagu siiyo cos oo qiimo la raaciyo tusaale aan ka soo qaado inuu yahay cos a minus b haddii lagu siiyo formulahan wuxuu sheegayay wuxuu dhahayay laba cos ee israacis wuxuu dhahayaa cos a oo ku dhacsan cos b barta meesha ay ka tahay minus ay waxay noqon doontaa plus. qaacidada ku xasuusanaa marka hore intaan meel kala gelin wuxuu noqon doonaa plus. kadib waxa raacaya sin waxa raacaya a sin b. xeerka guud sidaas ayuu ahaa. xeerkaas inaad xifdiso aad taqaano waa qasab. adoo xeerkaas yaqaana special angles hore soo sheegnay yaqaana ayaad hawshan ku fududaanaysaa. inta markaad joogto meel walba ku bedel qiimahan aad dareemayso ee cos 45 laga jaray 30 toos wuxuu ugu taagan yahay a minus b u taagan yahay. kuwana waxay kaga baahan kaliya inaad bedesho. marka iska soo guurso waxaad tiraahdaa cos waxaad tiraahdaa 45 laga jaray 30 wuxuu la mid yahay ama waxay la ekaanaysaa qormarka waxay la ekaanaysaa cos a. meel walba a ku aragto waxa ku bedelaysaa 45. waxaan dhahayaa cos waxaad tiraahdaa 45 oo ay raacsan tahay haddana cos b meesha ku aragto b waxa raacid doontaa 30 oo ay raacsan tahay si lamid ah cos waxaad dhahaysaa 30. inta markaad tiraahdo lagu daray sin a meesha ay ku aragto qiimihii ku bedel aan ku sheegaa. waxaan dhahayaa sin a booskeed waxa ii taagan 45. waxaan dhahayaa sin 45 sin b aan ku dhufanayaa waxa ii taagan 30. waxaan dhahayaa marka sin 30 ayaan dhahayaa. meel walba a iyo b waa taqaana qiimihii ku bedel. halka markaad joogto xalkaaga aad u gaabeen waa soo saari kartaa hadeer cos 45 laga jaray 30 haddii aad soo saartan waxay la mid tahay adoo soo saaray cos 15 kaliya tirooyinka waxa u baahan tahay inaad ku bedesho qiimihii aad taqaanay ee special angles aan hore u soo marnay ama xiisada hore ku sheegnay. halka marka aad joogto meel walba
cos qiimi aad taqaan special angles value-geeda ama qiimaha ay lahaayeen ku bedelaysaa. Halkan waxaan ku haystaa cos 45. cos 45 waxaan ku bedeli doonaa qiimihii cos markaan raadiyo value-geeda jadwalka inaan xasuusto ayaa u fiican. cos markii la sheego 45 waan fiirinayaa waa 0 farahi aan ku tirsanayaa oo hore soo sharaxay 0 30 45 fartan ayaa ku aadan laba ayaana ka sareysa laba food ayaa ka sareysa. sida daraadad wuxuu noqon doonaa xidid laba ka saar laba u qaybi sidiisuna ahaanaya ku dhibaya hadii kale sidiis ugu har waxaan dhahayaa square root 2 of waxaan dhahayaa 2 qiimaha wuxuu u taagan yahay qiimaha ayuu u taagan yahay. Okay intaas waxaan leeyahay waxa ku dhacsan oo la falgalaya cos 30 maxay ku noqon doontaa marka waxay noqonaysaa qiimadeeda in waa qoranayna laakiin bracketkaas inoo diyaari 30 waxaan dhahayaa markaan ka hadlayo 0 halka waxaan taaganahay 0 halka waxaan taaganahay 30 kan ayaa ku aadan cos markii la sheegay 3 farood ayaa ka sareysa maadaama 3 farood ayaa ka sareysa wuxuu noqon doonaa square root 3 oo macna 3 xidid laga saaro laba loo qaybiyay halka waxaa ku heshay cos 45 iyo cos 30 qiimahaas ay u taagan lagu daray dhahaysa hadeer waxa lagu daray marka lagu daray waxa ku daraysaa ku haray sin 45 iyo sin 30 arta inaa ku darto sin 45 sin markaan ka hadlaa mar walba waa 1 2 3 fartan iyo ku aadan sin laakiin inta ka hooseysa la fiiriyaa sin laba farood ayaa ka hooseysa sida darada wuxuu noqon doonaa laba xidid ka saar laba u qayb inta badan sin iyo cos marka 45 la joogo qiimo waay sida darada waxaan dhihi doonaa marka xidid waxaan qorayaa si toos u qorayaa xididka qoro oo ay ku jirto labo xidid ay ku jirto labo oo loo qaybiyay labo oo xeera hor u soo dhignay wax cusub maaha. intaas waxaan ku xirayaa u sameynayaa bracket halka markaan taagana waxaan ku dhufan doonaa sin 30 aan taagana oo sin ugu baahanahay 30 hadaan fiiri waa kan sin laakiin markii loo fiiriyo hal far ayaa ka hooseyso sida darada hal xidid ka sar halkiisii la hoos dhigay labo noqon doona waxa halka kaaga imaan doona hal la hoos dhigay labo sida garanaysa marka bracket kan inta badan ku dhufasho u taagan yahay laba bracket waxay ku dhufasho u qarsan marka waxaan sameeynaa sare ku dhufo hooseyna ku dhufo sida caadiyan aad taqaan fraction multiplication ama isku dhufashada jajabka haddii aan dhaho square root 2 iyo square root 3 isku dhufo laba xidid way isku dhacayaan waxay noqon doontaa inaad tira hal xidid soo qaado laba iyo saddex isku dhufan waxay ku noqon doonaan 6 ama 6 la hoos dhigay hoosey waxa ku yaala laba iyo laba isku dhuf waxay ku noqon doonaan 4 qaybta koowaad marka labadii tiro qayb laba waxay markaas ku dhufto jawaabta ku soo baxay noqotay square root 6 oo la hoos dhigay 4 plus qaybta kale soo adanka kale aad maxaa kugu qoran square root 2 iyo waxa isku dhufanaysaa 1 hadii wax lagu dhufto xuma soo korinayo asal madooriya ayaa lahaa sida daraadid numberkii ayaa soo laabanayo wuxuu noqon doonaa square root 2 oo sidiis ah la hoos dhigay xag hoos aad halkan waxa yeelay laba halkan waxa ku taal laba ku dhufo mise ku noqon doontaa waa 4 jawaabta waxay noqon doontaa hoosay uu siman yahay maadaama hoosay uu siman yahay halkan aan ku muujinaynaa hoosay haduu siman yahay waxa ka qaadan doontaa hal xabo hoosay siman 4 waxa ka qaadan doontaa hal xabo waa taqaana fraction markii la isku darayo kadib maxaa sameeynaa 4 hadii hal aan ka qaato sareeyahana waa la isku keenayaa waxaan dhahayaa square root 6 plus square root 2 marka meeshaas jawaabteena halkaas ay ku dhamaan doontaa waa jawaabta buuga kugu qoran answerka kaas iyo noqon doona jawaabtu waxay noqotay square root 6 oo loo geeyo square root 2 over 4 la isku mana dari karo maxaa yeelay kan xidid waaye x uu taagay kana y uu taagay macnaheedu inay kala duwan ku cadeynaa marka jawaabtu waxay noqon doontaa square root 6 oo loo geeyo square root 2 dhamaantood waxa loo qaybin doonaa 4 waa example keeni koowaad qaybtiisa ee halka uga baxnay BEC waan ku xijin doonaa waan raacin doonaa xiisadaha dambe soo socda halkaas ayaan uga bixinaa fadlan hadii ay tahay channelka markuu ugu horeysa soo booqatay subscribe saaro gambaleelka furo asxaabtaadana u sheeg oo sheerhaan ugu darsi ay u bartaan ay wax uga faa'iideysan dhamaan ardayda dugsiga sare ee manhajka cusub baranaysa ayaan ugu talagalnay xiisooyinkan aad ugu maasantaa daawashada muuqaalka.